dhowr dhakhaatiir oo aan isku daba maray waxay ii xaqiijiyeen in gabadhayda ay nolosheeda inta ka dhiman aysan ka kici doonin lugaha oo ay noqotay curyaan, wax rajo ahna aan laga qabin. run ahaantii markii aan dhowr dhakhtar tagay oo aan hal dhakhtar ku kalsoonaan waayey, balse kulligood ay igu dhaheen waa sax, gabadhaada ma istaagi doonto, lugaheeda kuma socon doonto, aad ayaan u murugooday. wax aan sameeyay ayaan garan waayey. ayadoo xaaladuhu saas igu adag yihiin ayaa waxaa dhacday marka dambe in uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala i haleeshiyo in aan akhriyo labadan dikri aanan baryo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. dhammaan daawadayaasheena sharafta leh ee ku xiran janalkeena, soo dhawaada walaalaha qaaliga ah. marka hore aan ku mahadino Alle subxaanahu wa tacaala, Allah inoo suurtageliyey in aan qabsano howlaheena adduun iyo midda aakhiraba. alxamdulilaahi daa'iman wa abadaa. ilaahayu nimcooyinka aadna siisay haddii laysku dayo in la xuso ama la tira koobo ma tirkoobayaan, noo siyaadi intaan haysanana sii. intaa kadib walaalaha sharafta leh, sidii caadada inoo ahaydba aan isxasuusino oon isku dhiirigelino salliga xabiibkeena Maxamed. allaahumma salli calaa Muxammadin wacalaa aali Muxammadin kamaa sallayta calaa Ibraahiima wacalaa aali Ibraahiim وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. soo dhawaada walaalayaal, waxaan rabaa maanta inaan idinla wadaago qiso aad qalbiga u taabanayso. run ahaantii waxaa laga yaabaa walaalo badan inay dhacdooyinkan iyo kuwa lamid ah haystaan ama ay soo mareen. waa qiso aad u xanuun badan, laakiin ugu dambeyntii ku dhammaan doonto guul iyo Alle subxaanahu wa tacaala awoodiisa, iyo labadan dikri siday awood u leeyihiin qofka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ku barya ee ku weydiisto, iyo in ay suurto gelinayaan waxyaalo ay bulshada idil isku raacday in aysan macquul ahayn inay dhacaan, laakiin awoodda Ilaahay ayaa wax walba ka weyn kana tan badan. qisadeena maanta waxay ku saabsan tahay hooyo. hooyadan waxaa ka xanuunsatay gabadheeda, ayadoo aad u yar ayuu gabadhii xanuun ku soo booday. waxay ahayd gabadha markaas ilmaha markaas socodka baranaya ayay ahayd, xanuun ayaa ku soo booday. gabadhii waa ay fadhiisatay oo lugihii ay ka socon weysay. hooyadan marka hore arinta gabadheeda waa ay la fududeed, maadaama ay islahayd gabadhaada hadda ayay socod baratay, xanuunkii ayaa fadhiisiyey. markii ay gabadhi istaagi weysay oo xanuunkii uu sii badanayay familka dareemeen, ayaa hooyadii iyo aabihii gabadhii waxay ula carareen isbitaal. baaritaan ayaa la sameeyey, waxaa la sheegay in xanuun halis ah uu gabadhan kaga dhacay lugaha, xanuunkaasna uu sababi karo in nolosheeda inta ka dhiman gabadhan aysan istaagin ama ay kicin. waalidkii waa ay yaabeen, waa ay u qaadan waayeen. dhakhtarka koowaad way aamini waayeen, way ku kalsoonaan waayeen. dhakhtar kale ayay ula ordeen gabadhoodii, sidoo kale baaritaano, dheecaano, wax kasta ayaa laga qaaday. dhakhtarkiina sidii oo kale ayuu yiri, laakiin wuxuu yiri daawooyin waxaan siinaynaa kaalmaati ah, haddii ay fiicnaato waan arkaynaa, laakiin lugahan rajo ma laha. waalidkii waxaa kusoo kordhay murugo. gabadhoodii oo caafimaadka qabta u soconaysay ayaa mar qurac waysay socodkii oo fadhiisatay, xanuun kusoo booday. waalidkii waxay go'aansadeen maadaama gabadhooda ay tahay gabar yar in ay mustaqbalkeeda Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa wax badbaadin karay ay badbaadiyaan, oo gabadhooda wax walbay u awoodaan ay u sameeyaan. markii ay dhowr dhakhtar tageen oo dalka ah oo sidaa lagu yiri, waxay go'aansadeen dhakhtar dibadda inay geeyaan. qarashaad aad iyo aad u fara badan ayaa ku baxayay, ayagana awood uma lahayn. waxay sameeyeen in dadkii qaraabada ay la hadlaan oo ay dhahaan war maanta ayaa wax la isku qaban karaa inta adduunyada la joogay, nacaawiyana garab qabta. tolkiina tol fiican ayuu noqday. familkii ugu dambeyn waa loo aruuriyay qaaraankii oo sidii ay gabadhoodii ku wateen. gabadhii waa la waday, dibadda ayaa la geeyay, baaritaano ayaa lagu sameeyey. dhakhaatiirta waxay sheegeen inuu xanuun kusoo booday gabadhan, lugaheedna ay khalaas tahay. xanuunkiina markii uu kusoo booday in haddii mar hore meel la geen lahaa laga yaabi lahaa gabadha inay lugaha u badbaadi lahaayeen, laakiin hadda maya, rajo ma lahan. reerkii oo go-aanka ugu dambeeyey soo qaatay oo qoostay, waayo markii dhakhaatiirta dalka ay u tagayeen waxay islahaayeen armaan rajo kala jirtaa, laakiin hadda waa khalaas oo dhakhaatiirta dibaddan hadday saas dhaheen aad ay reerka arinta ugu cuslaatay, waxayna noqdeen arin ay ku qasban yihiin inay qaataan.
gabadhooda ay soo wateen wadanka ay kusoo noqdeen dadkii oo idil waxay iska qaateen go'aanka ah gabadhii sidaas ay curyaan ku noqotay ma istaagi karto laakiin hooyo mar walba waa hooyo gabadheeda yar ee socon jirtay inkastoo wax walba qadar alla tahay waa ay ka sabri weysay waxay go'aansatay haddii aadanuhu dhaheen gabadhaada ma caawin karno waxba uma qaban karna ma istaagi karto waxay tiri Allah subhanahu wa ta'ala miyaa hadalkaas yiri ma ilaahay baa yiri gabadhaada yar ee saqiirta ah ayaa inta noloshaada ka dhiman socon karin waa maya maamadan waxay go'aansatay inay ilaahay barido in ay salaatul leel soo kacdo in ay soo kacdo saqda dhexe xilli ay dadku idil jiifaan in ilaahay subhanahu wa ta'ala gabadheeda u barido ducada waalidka waxay kamid tahay ducooyinka la anjiibo haddana xilli ay dadka jiifaan ay soo kici jirtay salaatul leel ay tukan jirtay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay barin jirtay in gabadheeda caafimaad u siiyo ilaahayow adiga ayaa awood leh ilaahayow adiga ay gacantaada wax walba ku jiraan ilaahayow adiga ayaa leh kun fayakun yani ilaahay subhanahu wa ta'ala awoodiisa sheegan hadda hadii uu dhaho hore ay ka dhacayaan marka maamadan waxay tiri anigoo ilaahayga seesto ma aha inaan isdhiib marnaba in aan naxariista iyo raxmadda ilaahay ka quusto maha sidii ayaa salaatul leel ku soo wici jirtay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayay bari jirtay waxayna akhrin jirtay xawqalada iyo istighfaarta xawqalada waa laa xawla wala quwwata illa billah ya astaghfirullah wa atuubu ilayhi ay akhrin jirtay ilaa 5,000 oo mar ayay midiiba akhrin jirtay ilaahayna aad ay u bari jirtay xilligaas salaatul leelka oo dadka hurdaana waa ay soo kici jirtay salaatul leel ay tukan jirtay maxaa dhacay hadaba 3 bilood markii hooyadan akhrinaysa xawqalada ama laa xawla wala quwwata illa billah sidoo kale ay akhrinaysa istighfaarta astaghfirullah wa atuubu ilayhi min 5,000 oo mar ay ka akhrin jirtay ay ilaahay subhanahu wa ta'ala bari jirtay ay tukan jirtay salaatul leelka waayo waxay jeclayd maalin waxay ku hamin jirtay gabadheeda soconaysa inay aragto lugooda caafimaad qabaan 3 bil markii ay wada ilaahay subhanahu wa ta'ala gabadheedii waa u caafiyay waa u shaafiyay maalin ayay si kadiis ah ku aragtay gabadheedii oo istaagtay oo guriga u fadhiso oo dhakhtar aysan geerin oo meel kale ay geerin ayadoo fadhiso bay gabadha hal mar istaagtay waxay tiri farxadda aan farxay maalintaas waan miyir daboolmi gaaray oo miyirka ayaa iga tagi gaaray alxamdulillah ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan u mahdiyay sujuud shukri ayaan la dhacay waxay tiri waxaan is hal mar amaytay oo gabadhaada soconaysa ileen waa waalide laakiin waxaan arkay tir gabadheeda sida uu istaagtay ku socotay subhanallah ilaahay awoodiisa bal arag wax walbo ilaahay haduu dhaho way dhacayaan waa uu dhacaya bini aadan iyo cid ka celin kartana malahan waxay tiri maamadii gabadheeda dhakhtar dambe iyo meel dambe kuma celinin waay dhakhtaradii waxay dhaheen gabadhaada ma kici karto ma istaagi karto nolosheeda inta ka dhiman saan ayay noqonaysaa haddaba yaa ii caafiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaan bariyay ilaahay ayaan salaad u tukaday xawqala ayaan akhriyay istighfaar ayaan akhriyay soo ilaahay ayaa ii caafiyay maba mudna ayay tiri inaan dhakhtar inta u tago aan dhaho gabadhiba ii caafimaad sababta oo asiga ii ma caafinin asigana awoodaas ma laha waana yaqiinsada ayay tiri awoodda ilaahay iyo faa'iidada ay leedahay xawqalada iyo istighfaarta iyo baryada ilaahay la baryo iyo sidoo kale qofka inuusan noqonin qof isdhiiba qofka haday bini aadam ku dhahan saan ma dhacayso inuusan aaminin oo aaminsan yahay uu og yahay inuu leeyahay ilaahay aan laga xigin ilaahay yiri hadii aad baridaan ducada waa idinka ajiibaya haddaba maamadan sidaas ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala gabadheeda caafimaadkeeda u soo celiyay riyada iyo rajadii ay lahaydna ilaahay waa u rumeeyay qof walba oo ilaahay ku kalsoonaado oo ilaahay ku tiirsanaado oo ilaahay baryana sidaas ayuu hamigiisa iyo rajadiisa ugu rumaynayaa biidnillah wa ma tantiin walaalaha sharafta leh muuqaalka like saara si uu walaalo badan u gaaro qaybta hoose commentigan aan ku soo qorno saliga xabiibkeena maxamed wa salaamu calaykum